qiyaastii 100 sano ka hor wiil 7 jir ah ayaa hortaagana qasriga Mysore Palace hortiisa waxaanu leeyahay hal hamiyo quryata kaasoo ah inuu marun arko waxa ku dhex jira qasrigan quruxda badan dhexdiisa laakiinse qasrigani waxa uu gaar ahayo keliyata qoyska boqortooyada wiilkuna waxa waa wiil u dhalay adeega danyarihii sidaasi daraaddeed hamigiisii umuusan noqon mid u rumoobay laakiinse xilligaasi qofina kumuusan fikiri karin in isla wiilkani yari uu mustaqbalka yeelan doono hoteelo qasriya u eg isla qasrigani boqortooyada ee Mysore Palace oo isaga u gaar noqon doona mana uusan dhisin hal hoteelo qudha balse waxa uu yagleelay qaar ka mid ah silsiladaha hoteelada ee ugu heerka sareeya adduunka oo dhan midanina waa qisada iyo sheekada hoteelada caanka ee LEELA sanadkii 1922 tuuliyaro u dhow magaalada Kerala waxa ku dhashay wiil yaro loo bixiyay magaca Krishnan Nair guri yaro cariisha oo dunsan gudihiis aabihii waxa uu ahaa shaqaale dawladeed oo hoose hooyadiina waxay saliidda ka joojin jirtay qumbaha si ay u iibiso hawshaasi adag darteedna gacmihiidu waxay noqdeen qaar wada nabara oo midmadoobaaday markii uu arkay dhibka qoyskiisa haysta Krishnan wuxuu isku qanciyay in waxbarashadu tahay jidka keliya ee looga bixi karo faqriga sidaasi daraaddeed dugsiga waxa uu arki jiray meel muqaddasa laga soo bilaababa barashada luuqadda Hinduuga ee Sanskritka loo yaqaano ilaa iyo min maadooyinka sayniska mid kasta oo ka mid ahna wadnihiisa ayuu ku qori jiray nasiib wanaagna markii gudoomiyaha deegaankaasi ka talinay uu maqlay dadaalkiisa iyo garaadkiisa waxa uu ballan qaaday inuu bixin doono dhammaanba kharashka waxbarashada ee dugsiga sare ee ku baxaysa Krishnan taageeradaas darteed Krishnan waxa uu markii dambe fursad u helay inuu galo kulliyadda Government Arts College ee ku taala magaalada Chennai ee dalka Hindiya riyadiisu waxay ahayd inuu waxbarashada dhammaysto dabadeedna uu helo shaqo sharaf leh laakiinse nasiib muusan yeelanba midaasi qoyskiisuna weli waxay dhex dabaalanayeen dhibaato dhaqaale waalidkiisuna way sii gaboobayeen waxayna si degdeg ah ugu baahnaayeen gacan qabashadiisa sidaasi darteed sanadkii 1942 isagoo 20 sano jira Krishnan waxa uu dhexda kaga tegay waxbarashadii kulliyadda waxaana ku biiray ciidankii Hindiya ee Ingiriisku maamulayay waxaana loo diray buuraleyda qabowey loo yaqaano Abbottabad isaguna halkaasi ka noqday sarkaal rayid ah oo qaabilsan xiriirka isgaadhsiinta raadiyaha ciidanka shaqadiisu waxay inuu dhegeysto fariimaha sirta ee ciidanka isbahaysigu isdhaafsanayaan si uu furfuro oo u turjumo kadibna uu sidaasi ugu gudbiyo taliska guud markii ugu horreysay noloshiisa Krishnan waxa uu dareemayaa inuu xaalkiisu degan yahay uuna awood u leeyahay inuu qoyskiisa dhanka dhaqaalaha ka caawiyo laakiinse isla xilliyadaasun ay musiibo weyn dhacday abaaraban ayaa ku dhuftay gobolkii ay deganaayeen qoyskiisu ee Kerala kuwaasoo markaasi laga xabsi qabay inay u dhintaan abaartaasi darteeda ilaa 400 qof xilli uu Krishnan uu ka helay saldhigga ciidanka saddexdiisa waqti ee cuntada oo isa saara balse waxa uu cuntami weyday in qoyskiisii iyo dadkiisii tuulada oo ay ku jiraan saaxiibadiisii ay soo wada koreen ay u dhiman doonaan gaajo darteeda xaqiiqdaas darteedna waxa uu ka tegey shaqadiisii oo iska casilay waxaanu ku laabtay dhinacaasi ee Kerala si uu dadkiisa u garab istaago isla markiiba waxa uu ku biiray waaxda saayida dadweynaha ee Civil Supply Department ee dowladda waxaana halkaasi looga xil saaray inuu dadka gaadhsiiyo baahiyaha asaasiga sida bariiska sonkorta iyo gaaska muddo gudaheedna waxa uu ogaaday in nidaamka oo dhan ay hadhiyeen saraakiil iyo ganacsato hantiboob ah oo musuqmaasuq u saaxiiba arrinkaasi darteedna raashinkii loogu talagalay dadka tabaalaysan waxa ugu dambayn jiray ugu dambayntii suuqa madow halkii uu masaakiinta ka gaadhi lahaa laakiinse markii uu Krishnan hawsha gacanta ku dhigay waxa uu durtadiiba qaaday tallaabo adag uu ku soo afjarayo dulmigii socday waxa uu dusha kala socday oo kormeeraya xabad kasta oo raashin ah oo bakhaarka ka baxaysa isaguna liiska madow geliyey ganacsatadii boobka ku jiray muddo gudaheedna magaciisii iyo hufnaantiisii ayaa laga dhex hadalayay deegaanka Kanuur oo dhan waxaanu dadka u noqday geesi badbaadiya markii haddaba ay xaaladdu degtay Krishnan waxa uu go'aansaday inuu dib ugu laabto ciidanka markanse waxaa loo qaatay sarkaal rasmiya waxaana madax looga dhigay guutadii lagu magacaabi jiray Maratha Light Infantry dhowr sano gudahoodna waxa uu ku gaadhay darajada kabtan xilligaasi
waxaa noloshiisa ku soo kordhay isbeddel weyn oo wax walba bedelay. Qisada Nair oo ahaa mid ka mid ah ganacsatadii ugu magaca weynaa magaalada Kanuur ayaa indhaha ku hayay Krishnan muddo sannado ah. Aad buu la dhacay hufnaantiisii uu muujiyey xilligii abaaraha iyo kartidii uu ka dhex muujiyey ciidanka dhexdiisa. sidaasi darteed waxa uu go'aansaday inuu gabadhiisa siiyo Krishnan. markii haddaba ay labadiisii qoys isku raaceen arrinka guurka ayayna isguursadeen gabadhii sanadkii 1950. gabadha uu dhalay ee Qisada Nair ee noqotay xaaska Krishnan magaceeda waxaa la odhan jiray Leela, waana isla Leelada uu magaceeda ugu dambayntii Krishnan u bixin doono hoteeladiisa raaxada ee adduunka oo dhan laga yaqaano. maadaama ay dadku ku ogaayeen Krishnan inuu yahay sarkaal ciidan oo magac leh, xaaskiisa Leela waxay ka dhex arkaysay magacaasi inuu ku hogaamin karo oo uu ka caawin karo inuu dhisan karo boqortooyadiisa ganacsi ee isaga u gaarka. sidaasi daraaddeed sanadkii 1952 waxay ku qancisay Krishnan inuu shaqada ciidanka isaga fadhiisto. Leela Behed waxa uu maamuli jiray warshadaha Rajaswari Mills ee ku yaala magaalada Kanuur, halkaasuna lagu farsamayn jiray dharka laga sameeyo dunta fabriga ee tayada sare leh. Krishnan waxa uu markaasi go'aansaday inuu noqdo wakiilka u qaabilsan dhanka iibka ee warshadaasi. shaqadiisu waxay ahayd inuu saambalo ah dharka ay soo saartay warshadu uu ka soo qaado magaalada Kanuur, dabadeedna uu dukaamada ku yaala suuqa Multijet ee magaalada Mumbai ku yaala oo mid ugu tago si uu dalabaadka iibka uga soo qaado. isaguna taabadelkeeda waxa uu ka helay kuna yaroo dulsaara commission. muddo yar gudaheed Krishnan waxa uu kaga yimid inuu ahaa sarkaal ciidan oo la qadariyo ilaa min dilaal dhex lugaya jidadka u dhexeeya dukaamada dhexdooda. dadka qaar baa xitaa ku qosli jiray ama hoos u eegi jiray, laakiinse miisan ogeyn in Krishnan uusan dhari keliyaata uusan iibinayn, balse taabadelkeeda uu si aamusnaana u baranayo siraha iyo farsamooyinka ganacsiga. sanadkii 1958 Krishnan waxa uu gobolka Tamil Nadu ka helay maro si gaara loo farsameeyey, waxayna ahayd maro laga sameeyey cudbi oo aad u fudud, hawaduna si fudud u dhex marayso. waxaana lagu midabay waxyaabo ka samaysan dhir dabiiciya oo ay ka mid yihiin sida dhirta indigo, turmeric iyo weliba saliidda sinsinta. taas ayaana keentay in marada midabadeedu ay aad u dhalaalaan, carafteeduna ay noqoto mid dabiiciya oo gebi ahaanba ka duwan dharka kale. laakiinse maradani waxay leedahay hal dhibaato weyn marka la meedhayo, taasoon ahayd inay fasakha jirtay. Krishnanse dhibaatadaasi waxa uu rogay fursad daabiya, waxaana uu bandhigay ganacsato ka soo jeeda dalka Maraykanka oo ah kuwa alaaba u soo dejiya dalka Hindiya gudihiisa, isagoona u sharaxay in mar kastoo maradan la meydhaba ay midabadeedu isku dhex yaacayaan, kana dhalanaysa midaasi naqshad cusubi mar kastoo la meydhaba maradan. taasi micnaheedu waxay ahayd in macmiilku iibsanayo hal maro, balse mar kastoo meydhaba uu dib u helayo muuqaal cusub oo u dhigma dhar cusub. taasi micnaheedu waxay ahayd in macmiilku hal maro iibsanayo, balse mar kastoo meydhaba uu dib u helayo muuqaal cusub oo u dhigma dhar cusub. jaakado, funaanado iyo surwaalo gaagaaban ayaa laga sameeyey maradani, waxaana lagu dhex iibiyey Maraykanka dhexdiisa. maadaama oo ay maradu ka soo jeedo asalkeedu magaalada Madras ee dalka Hindiya, waxaa loo bixiyey magaceeda Bleeding Madras, madrastii dhigbaxasay. dadku aad bay dhab ahaantii u jeclaadeen dharkaasi. toddobaad gudihiisna safarkii guurayo dhanba isla markiiba waa la dhammaystay. maraduna waxay noqotay moodul weyn oo Maraykanka qabsatay. intaasi kadibna Krishnan waxaa ku soo fatahay dalabaadyo fara badan, taasina waxay u noqotay guul weyn. laakiinse hal arrin ayaa weli qalbigiisa dhibasay, weli waxa uu ahayo keliyaata nin dhexdhexaadiya ama dilaala, balse markani waxa uu si xoogan u rabay inuu gudaha dalka Hindiya ku sameeyo alaab dhammaystiran oo isaga u gaara. laakiinse hal arrin ayaa weli qalbigiisa dhibasay, weli waxa uu ahayo keliyaata nin dhexdhexaadiya ama dilaala, balse markani waxa uu si xoogan u rabay inuu gudaha dalka Hindiya ku sameeyo alaab dhammaystiran oo isaga u gaara. intuu safar ku joogay magaalada London, xaaskiisa Leela waxay aragtay in marooyinka shabaqa ama shabiga loo adeegsado in laga sameeyo daahyada, gogosha miisaska la dhigo iyo weliba dharka dumarka. waxaana Krishnan kula talisay inuu marooyinkaasi shabaqa ku soo saaro gudaha dalka Hindiya, balse hirgelinta mashruucaasi muusan ahayn mid yaroo fudud. waxa u baahnaa in mashiino casriya laga keeno dalka Scotland, lacag badan iyo weliba shaqaale aqoon durugsan u leh farsamadaasi. si kastee haataba Krishnan
wuxuu ku guulaystay in wax walba isku dabarido. sanadkii 1964 wuxuu magaalada Mumbai ka furay warshad uu bixiyey Leela Scottish Lace, taasoo noqotay goobtii ugu horeysay ee dharka shabaqa ama shabiga soo saarta ee laga yagleelo gebi ahaanba dalka Hindiya oo dhan. gabadhii xilligaasi ku guulaystay Miss India, gabadha ugu quruxda badan dalka Hindiya oo la odhan jiray Meher Mistry, ayaa masraxa ku soo gashay dhar laga sameeyey shabaqa ama shabiga Leela, halka sidoo kalena dhinaca kale xidigii weynaa ee Bollywoodka ee lagu magacaabi jiray Rajesh Khanna isna uu soo xidhay iska joog ay soo saari jireen ee lagu magacaabi jiray kurta maalintii dhalashadiisa. muddo yar gudaheedna magaca ganacsigiisu waxa uu dalka Hindiya oo dhan ka noqday astaan u taagan oo lagu garto nolosha luxury-ga ama raaxada iyo qaninimada. 15 sano ku xigay ganacsiga Krishnan si aad ayuu u ballaadhay, laakiinse maalin ayay wax walbaaba isbedeleen. sanadkii 1979 dhowr mishiino waaweyn oo warshadu lahayd ayaa hal mar wada xumaaday. inkastoo la hagaajin karayay, haddana taasi micnaheedu waxay ka dhignayd in agabka dhiman oo dhan laga doono dalka Scotland, balse dowladda Hindiya oo xilligaasi la daalandhacisay dhibaato dhinaca lacagaha qalaada ayaa gebi ahaanba mamnuucday in waxyaabahaasi dalka dibaddiisa laga soo iibsado. taasina waxay keentay in wax soo saarkii warshadu gebi ahaanba istaago, dalabyadii iibkooduna uu fashilmo. lacagtii badnaydna ayuu Krishnan ku bixinayay ballaadhinta ganacsigiisa iyo horumarintiisuna waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay. isagoo daada 57 jira muusan khasaarin hantidiisii uu muddada dheer soo tabcayay oo keliyata, waxa uu sidoo kale dhex dabaashay deyn iyo khasaaro ka badan wixii gacanta ku hayay. isagoo daada 57 jira muusan khasaarin hantidiisii uu muddada dheer soo tabcayay oo keliyata, waxa uu sidoo kale dhex dabaashay deyn iyo khasaaro ka badan wixii uu gacanta ku hayay. gurigii uu ku lahaa magaalada Mumbai-na waxa uu ku dhawaaday in deyn darteed looga qaato. si uu badbaado haddaba waxa uu ku qasbanaa inuu qaado tallaabo degdeg ah. nasiib wanaagsi xilligaasi waxay diyaarad dhexdeed ku kulmeen nin ganacsada ah oo lagu magacaabi jiray Rajendra Sakh. Rajendra waxa uu qorsheynayay inuu Hindiya ka bilaabo soo saarista dharka diyaarka ee loo yaqaano ready-made. waagaasi dharka sida weyn looga jeclaa dalka Maraykanka waxa waa dharka yaryar ee fudfudud ee raaxada leh. Rajendra waxa uu raadinayay ganacsade Hindiya uu soo saari karaa dhar caynkaasi oo kale. waxaan uu sheegay in macaamiishiisuna ay soo socdaan dalka Hindiya muddo 2 toddobaad gudahood si ay u soo eegaan tijaabooyinka dharka caynkaasi oo kale. waxaan uu sheegay Krishnan in haddii muddadaasi gaaban ugu diyaariyo tijaabooyinka kuwa ay rabaan macaamiishiisu uu siin doono qandaraaska. Krishnan ayaa durtadiiba hawsha galay oo isku qaaday oo u badheedhay. waxoogaa lacaga ayuuna deynsaday, waxaanu mishiinada dharka lagu talo ka soo iibsaday warshad kale oo xidhmisay, isagoona kaga helay warshadaasi qiimo aad uga jaban intii uu suuqyada caadiga kaga soo iibsan lahaa. kadibna warshadiisii hore xidhmisay ayuu qayb ka mid ah kaga bilaabay shaqadii hordhac ahayd. tallaabada ugu muhiimsanayd ee Krishnan qaadayna waxayd nooca marada uu doortay, isagoona u dhooxay waxa suuqa Maraykanku rabo. waxa uu tijaabadiisii ugu horreeyay ku sameeyey maro codbiya oo aad u khafiifa. Cheesy cloth waxay ahayd maro jilicsan oo aad u qabow, aadna ugu habboon dharka caadiga ee la xidho xilliyada firaaqada. isla markaasina maradaasi waxay ahayd mid wax kasta loo isticmaali karayo. waxaa loo diin karayay midabkeeda dabiiciga ama waxa lagu buufin karayay midab kasta, waxaana laga samayn karayay naqshad nooc kasta. Krishnan durtadiiba maradii ayuu soo aaliyey mishiinadii ayuuna kiciyey, tijaabooyinkii wakhtigii loogu talagalayna ayuuna ku dhameeyey. markii ay macaamiisha arkeen shaqada uu qabtay aad bay runaantu la dhaceen. naqshadii cusbaan ee dharkana waxay u bixiyeen Nirvana. Krishnanna wuxuu markaasi gacanta ku dhigay qandaraaskii weynaa ee uu raadinayay. muddadii 12 bilood ahayd ee ku xigtay wuxuu iska bixiyey dhammaanba deymihii lagu lahaa. ganacsigiisuna waxa uu dib u bilaabay inuu sameeyo faa'iido ballaadhan. sannadihii xigina waxuu dhar u soo saari jiray sumado caan oo Maraykanka laga leeyahay oo ay ka mid yihiin sida Liz Claiborne, Calvin Klein iyo weliba George. kobaca ganacsigiisu waxa uu noqday mid ku socda xawaare aad u sareeya ilaa heer sanadkii 1980 ay shirkadiisii Leela Scottish Lace ay noqotay dhoofiyaha ugu weyn ee dalka Hindiya ee u dirta dharka diyaarsan dalka Maraykanka. markii uu sanadku 1983 Krishnan waxa uu ku jiray da'da 61 jirka, isaguna waqti xaadirkaasi maamulayay boqortooyo ganacsi oo aad u guulaysatay. qof kasta oo kale xilligaasi waa xilligu uu ku fakaro inuu shaqada ka fadhiisto, balse isaga xilligaasi ayay u ahayd bilowga hayaankiisa dhabta. sanado badan ka hor isagoo mar safar ganacsi u jooga dalka dibaddiisa waxa uu ku tegey hotel lagu magacaabi jiray Waldorf Astoria oo ku yaalay magaalada New York,
kaasoona ka mid ah waa hoteelkaasi mid ka mid ah hoteeladii ugu raaxada badnaa adduunka. hoteelkaasi waxau lahaa jid tareen oo isaga u gaar ah, sidoo kale waxau lahaa warshad yaro korontada u dhalisa. gudihiisuna wuxuu ah mid u qurxo sida boqortooyooyinka oo kale. Krishnan isagoo hoteelkaasi dhiirigelin ka helaya wuxuu ku aamiyey inuu hindiyana ka dhiso silsilado boqortooyin hoteela uu heerkoodu yahay qaar aad u sareeyo caalamiya. go'aankiisuna wuxuu noqday inuu hamigiisa ka dhabeeyo oo uu ka midho dhaliyo. markii uu hindiya ku soo noqday waxa uu ogaaday in waqooyiga magaalada Mumbai laga wado dhismaha garoon diyaaradeed oo caalamiya oo loo bixiyey saar, iminkana loo yaqaano Chhatrapati Shivaji Maharaj. inkastoo dhismaha garoonkani weli socday, haddana muusan jirinba xitaa hal hotel oo kuwa raaxada ah oo gagaarkiisa ka dhisnaa. silsiladaha hoteelada waaweyn ee ka dhisnaa dalka hindiya xilligaasi ay ka midka ahaayeen sida Taj Hotels iyo Oberoi Group waxay ku yaaleen ay ku badnaayeen dhinaca koonfurta magaalada Mumbai. sida inta badan dhici jirtana garoomada cusub ee diyaaradaha waxaa laga agdhisi jiroonoo quryaata hoteelo yaryar oo caadiya. dadka aqoonta u lena ganacsiga hoteeladuna waxay rumaysnaayeen in hoteelada garoomada u dhowdhow ay u adeegaan oo quryaata uun socotada rabta in sii seexdaan meelo jaban ka hor intaysan dhoofin. laakiinse Krishnan waxa uu si hoose u fahmayn maadaama Mumbai ay tahay xarunta ganacsiga dalkoo dhan ay horseedi doonto in ganacsatada waaweyn, dadka caanka iyo madaxduba ay ka soo degi doonaan garoonkan, ayna u baahan doonaan hotel heerkiisu yahay mid aad u sareeya oo u dhow. isagoo haddaba fikraddaasi ka duulaya waxa uu aasaasay shirkad cusub oo u bixiyey Hotel Leela Ventures Limited. waxa uu iibsaday 13 eekar oo dhul ah oo u dhow garoonkaasi diyaaradaha, waxaanu durtadiiba halkaasi ka bilaabay dhismaha hotel ka kooban 250 qol. waxaanu u qorsheeyey inuu hoteelka ka dhex dhiso beero waaweyn oo cagaaran. Frank Solona oo ahaa khabiir dhanka naqshadaynta gudaha oo fadhigiisu ah magaalada London ayuu noo soo koraystay si hoteelka ugu yaalo muuqaal qurux badan oo raaxaad u sareysa muujinaya. dhismuhu wuxuu ku socday xawaare aad u dheeraynaya ilaa heer hal sano quryaata gudihiis lagu dhammaystiray. hoteelkuna wuxuu ka koobnaa 4 dabaqa, laakiinse sheekadii ayaa mar quryaata isbedeshay kadib markii warkiis ka soo bixi jiray dalka hindiya oo lagu magacaabi jiray The Indian Express uu bogiisa hore ku soo daabacay warbixin sheegaysa in la jebiyey 19 sharci intuu socday dhismaha hoteelka Leela. waxaanu sidoo kale ku dooday in dhererka hoteelku carqalad ku noqonayo marinada ay diyaaraduhu maraan. markii warkaasi haddaba la baahiyey, hogaamiyaashii mucaaradka ayaa bilaabay qayladhaan iyo cabasho. dhismihii ayaanu durtadiiba la istaajiyey, waxaana la bilaabay baadhitaano ballaadhan. bilowgii dhismaha hoteelku wuxuu xayirnaa muddo dhowr bilood ah, taasuna keentay in kharashka mashruuca ku baxayay uu aad u kordho. Krishnan aad buu dhab ahaantii uga calool xumaaday arrinta, sababtoo waxa uu ogaa inuusan xitaa hal sharcina jebin. ugu dambayntiina ra'iisul wasaare dalka oo lagu magacaabi jiray Rajiv Gandhi ayaa si shakhsiya ugu soo diray sarkaal ciidan oo u soo xaqiijiyay xaaladda goobta ka jirta. baadhitaankii la sameeyeyna waxa uu caddeeyey in eedeymahaasoo dhammi ahaayeen kuwo gebi ahaanba beena oo aysan waxba ka jirin. intaasi kadibna dhismihii ayaa ugu dambayntii dib u bilaabmay 12 Oktoobar sanadkii 1986, waxaana la gaadhay maalintii weyneyd la wada sugayey, taasoo ahayd in hoteelkii Leela Mumbai loo ballaqay albaabada martida. mausan ahayn hotel garoon diyaaradeed oo iska caadiya, balse waxa uu ahaa qasri dhaba. farshaxano qaaliya ayaana gees kasta ka yaalay. sagxadaha hoteelku waxay ka samaysnaayeen marmarka crystal chandelieriska. shaqaaluhuna waxay ahayn qaar loo tababaray inay dareemaan waxay martidu u baahan yihiin ka hor intaysan hadalba. maalin maalmaha ka mid ah beertooda dhexdeeda waxay ku arkeen mid ka mid a martida oo beerta ka soo guranaya ubaxyo dhulka ku daatay. maalinkii ku xigana markii ay martidu ka soo baxday qolkeeda, shaqaalihii hoteelku waxay hadiyad ahaan u siiyeen baaquli weyn oo ku buuxaan ubaxyadii aadka u jeclayda. martidii aad bay dhab ahaantii ugu farxday daryeelkaasi, waxayna halkaasi ku noqotay macmiil dhaba oo aan marnaba ka goyn Leela Hotels. faa'iidada ugu weyn ee Leela waxay dhanka waqtiga, maadaama inta badan diyaaradaha caalamiga ay soo degi jireen saqda dhexe ama duuli jireenba. taasi micnaheedu waxay ahayd in dadka dalka ka dhoofaya ay hoteelka baneeyaan 10 ama 11 habeenimo si ay diyaaraduhu ugu raacaan. inkastoo waqtiga rasmiga ay bixitu uu ahaa galabta xigta, haddana isla martidii ka soo degtay isla diyaaraddaasi ayaa durtadiiba qolka soo gelaysay. sidaasi darteed hal qol ayaa hal maalin gudihii 2 goor lacag laga sameynayay. muddo yar kadib markii la furay Leela Mumbai waxay noqotay meesha ay ku soo hirtaan dadka maalqabeennada ahi, maadaama ay xarunta filimada ee Film City ay ku taali waqooyiga Mumbai. hoteelku waxau sidoo kale noqday hoyga koobaad ee xitigaha Bollywoodka, maadaama ay xarunta filimada ee Film City ay ku taali waqooyiga Mumbai. hoteelku waxau sidoo kale noqday hoyga koobaad ee xitigaha Bollywoodka, agaasimayaasha iyo soo saarayaasha filimada. sidaasi
ayuuna hoteelkii ugu horreeyey Krishnan Nair uu noqday guul weyn oo la yaab leh. Guushii Mumbai ka gaadhay waxa la gaadhay waqtigii uu gudbi lahaa meel ka duwan magaalada, waxaana markan u dusay magaalada Bengaluru. Krishnan caruurnimadkiisii kuma uusan riyoon jiray xitaa inuu dhex galo qasriga caanka ee Mysore Plaza, laakiinse iminka uu jiro muddo 65 sano ah waxa uu go'aansaday inuu dhiso hotel waa qasri isagoona ka shidaal qaadanaya qasriga Mysore. Sagaashamiyadii magaalada Bengaluru waxay dhex dabaalanaysa horumar iyo koritaan dhinaca teknolojiyadda oo ku socday xawaaraad u sareeya. Shirkadaha waaweyn ay ka mid yihiin sida Infosys, Wipro, IBM iyo weliba Oracle ayaa xafiisyo ka furinaya halkaasi. Madaxda sare ee shirkadahaasi, macaamiisha shisheeye iyo weliba ganacsatada magaaladu waxay u baahnaayeen hoy heer sare ah oo ay ku nastaan. Inkasta uu suuq weynaa, haddana tartan adag ayaa hore uga jiray. Hoteelada Taj West oo haystay 106 qol iyo Oberoi Group oo lahaa 120 qol waxay ahayn kuwo si adag suuqa ugu jira. Sidaasi darteed Krishnan waxa uu go'aansaday inuu la yimaado qorshe uu suuqa ku geli karayo, waxaana ku dhawaaqay inuu dhisi doono hotel weyn oo ka koobnaan doona 256 qol. Baaxadda hoteelkiisan cusubna waxa uu ka badnaa isku darka labada hotel ee Taj iyo Oberoi oo la isku daray. Sidaasi darteed weliyadu albaabada aan loo furinba waxa Leela Plaza loo aqoonsaday hoteelka ugu weyn uguna qaalisan magaalada Bengaluru. Inkasta oo didiilada lagu dhammaystiray dhismuhu ahaa mid aad u sareeya, haddana hirgelinta qorshihiisa ayaa dhalay caqabado ba'an maadaama uu ahaa mashruucu mid aad u murgacsan oo complicated ah. dib u dhacyo ayaa marba marka kasii dambeeya soo food saarayay, waxaana la gaadhay xilligii uu bixin lahaa deymihii uu soo qaatay dhismaha, balse dakhligii ka soo xaroonayay hoteelkiisii hore kamuusan bixin karayn badaynta. shirkaddu waxay xilligaasi qarka u saarnayd inay gebi ahaanba kacdo oo musalafto. si shirkadda haddaba looga badbaadiyo inay musalafto, Krishnan waxa uu adeegsaday xirfadihiisii tadqiicinta iyo ganacsiga uu muddada dheer yaqaanay, waxaanu kulan la qaatay gudoomiyaha bangiga HDFC oo lagu magacaabi jiray DeepAI, waxaanu si kalsooni ka muuqato u hordhigay hamigiisa ku aadan mashruuca uu ka damacsan yahay magaalada Bengaluru. DeepAI waxa uu noqday mid duurtadiiba ku qancay, waxaanu u oggolaaday maalgelin degdeg ah oo dhiig joojina, balse maalgelintaasi dhab ahaantii kumaysan filnaynba in hoteelka oo dhan mar quryaata la wada dhammaystirto. sidaasi darteed Krishnan waxa uu go'aansaday inuu dhismaha u qaybiyo wejiyo. wejiga koowaad waxa uu ka dhisay dhinaca ama garabka galbeed ee dhismaha. markii ugu horreysana waxa uu dhammaystiray 9 qol oo quryaata oo ay ku jirto qaybta soo dhoweynta martida ama loobiga loo yaqaano, iyo makhaayadda hoteelka loo bixiyay Citrus ayaa la dhammaystiray oo loo ballanqay martida. lacag ayaana bilaabatay inay shirkaddu ku soo qulqusho si tartiiba ayaana intii kala gaadhay hoteelku uu dhammaystiray, halka hoteelada kale ee la tartamay isagu ay bixinayeen adeeg raaxo iyo deganaan iyo qurxoon ah. Leela Plaza waxay dareensiisay macaamiisheeda dareen boqortooyanimo oo dhaba. Leela umaysan ekeynba sida hoteelada kaloo kale, balse dhab ahaantii waxa uu ekeed qasri boqoroo degan yihiin. muddo gudaheedna waxau ku noqday boqorkaan lala tartami karin ee hoteelada casriga ee magaalada Bengaluru, maadaama uu haddaba qasrigan mid mar waliba qololkiisu buuxaan 90%. waxa uu shirkadda ama kombaniga Krishnan u noqday isha ugu weyn ee dakhliga lacagta ay ka soo galo. guushaas kadib hoteelada Leela waxay ku fidayeen si xawaaro leh. bartamii sanadii 2000 waxay goobo dalxiis oo heer caalami ka dhisteen tuulooyinka Goa iyo Koflin, balse weli waxa u dhimnayd hal xujo weyn. Krishnan waxa uu qalbiyan u ogaa inuusan magaalo gaar ahna magacii miisaan ku dhex yeelan, sidaasi darteedna sumantiisa Leela lagu tirin karin silsiladaha hoteelada ee dalka ugu horeeya. magaalada u calaamasnayd Krishnan inuu saameyn weyn ku dhex yeesho waxayd magaalada Uduber oo loo yaqaanay dhulkii halyeeyada Maharanas. Uduber waxay ka mid ahayd meelaha ugu caansan ee dalka Hindiya ee loo tago aroosyada aadka u qaaliga ay dhigtaan dadka maalqabeennada ahi. kadib markii sanadkii 1983 halkaasi lagu duubay mid ka mid a filmadii caanka noqday ee James Bond, taasuna horseeday markii dambe inay soo jiidato dalxiisayaasha ka kala yimaada adduunka oo dhan. shirkad kasta oo maamusho hoteelada waaweyn caankii waxay Uduber ku lahayd xaruntooda ugu qaalisan uguna magaca weyn. dhinac waxaa ka dhisnaa hoteelka caanka ee Taj Lake Plaza, kaasuna ahaa dhismo marmar ka samaysan oo cimrigiisu jiray 270 sano, kuna yaalay dhexbartanka harada Bichola. dhinaca kalena waxaa ka muuqday hoteelka weyn ee Oberoi Udufilis, hoteelkana ku fidsanaa dhul cabirkiisu dhan yahay 30 eekar. waxa uu caan ku ahaa barkadaha waaweyn ee lagu dabaasho ee u gaarka macaamiisha iyo adeeg hufan oo heerkiisu yahay mid aad u sareeya.
sanadkii 2015 waxaa loo doortay inuu yahay hoteelka ugu wanaagsan adduunka oo dhan. inkasta oo tartankaasi adag jiray, haddana Krishnan waxa uu go'aansaday oo ku adkaystay in hoteelada Leela laga yaqleelo magaalada Uduber. waxa uu isha ku dhuftay dhismo guduudan oo caas ugu yaala hareeraha harada Pichola, halka dadka kale oo dhammi u arkayeen dhismahaasi inuu yahay burbur iyo raadad duuga oo keliyata. Krishnan isagu waxa uu ka dhex arkayay hoteelkiisii mustaqbalka. waxa uu halkaasi ka iibsaday 6 eekar oo dhul ah, dhismihiisiina durtadiiba waa uu bilaabay. qorshihiisuna waxa waa inuu hoteelka u yeelo irid weyn ku soo jeeda harada Pichola, si martidu markay imanayaan hoteelka ay ugu soo geli karaan iyagoo saaran doonyo. sanado badan oo uu dadaal iyo dhib ka soo maray kadib, ugu dambayntii markii hoteelka uu sidaasi diyaar u noqday ayuu dhacay qadar isbiirbiirsaday iyo waxaan la filayn. intaan hoteelka la furinba haradii Pichola ayaa gebi ahaanba gudhay oo noqotay oomane. marnaba suurtagal maysan ahayn inay martidu u soo galaan hoteelka sidii markii hore loo qorsheeyo kale oo ahayd inay dhinaca biyaha ka soo galaan hoteelka. Krishnase ma uusan noqon nin qalbigiisu si yaro fudud isku dhiibayo. isagii kooxdiisii ayaa arrinka falanqeeyey, waxaana u soo baxday oo ay qaateen arrin kale oo geesinimo leh, taasoo ahayd in 1 eekar oo dhula ay ka iibsadaan dhinaca kale hoteelka. waxa uu damacsanaa inuu halkaasi ka dhiso waddo hoteelka si toosa ugu xidhaysa jidka weyne magaalada. caqabada hortaagnaysay waxayd inuu dhulkaasi uu rabay inuu iibsado ay deganaayeen qoysas fara badani. in qoys kasta si gooniya loola hadlaana oo lagu qanciyey inay gurigooda ka guuraan waxay dhab ahaantii arrin aad u adag oo silix fara badan. si kastaba ahaatee, si tartiiba ayuu qoys kasta heshiis ula galay ilaa iyo ugu dambayntii uu dhulkiioo dhammi isaga ku soo wareegay. waddadiina sidaasi ayuu halkaasi uga dhisay. nasiib wanaagsi sidoo kale muddo dhowr bilooda kadib haradii ay biyihii ku soo noqdeen oo dhibaatadii biyo la'aanta ahayd halkaasi ayay ku dhammaatay. qololka hoteelka Leela waxay ahayd kuwo aad uga waasacsanaa ugana waaweynaa marka la barbar dhigo hoteelada Taj iyo Oberoi. qol kasta oo hoteelka ku yaalana waxau si toosa u eegayay muuqaalka quruxda badan ee harada. shaqaalaha hoteelka waxaa loo tababaray inay martida u qaabilaan sidii boqorro iyo boqorrado dhaba oo kale. maalin ayaa waxaa hoteelka yimiday macmiil wata sanamyadii u caabudi jiray. haddaba maalin maalmaha ka mid ah isagoo magaalada u baxay si uu soo daawado muuqaalka magaalada ayuu waxau kaga tegey sanamyadiisii miis yaalay hoteelka dushiisa. laakiinse markii uu soo laabtay waxau arkay shaqaalihii hoteelka oo asnaamtiisii si xushmad leh u duldhigay mara xariir oo cas, waxayna sidoo kale hordhigeen ubaxyo qurux badan iyagoona u dhigay qaab waafaqsan habmaamuusaadka iyo dhaqanka u gaarka ee macmiilku aaminsanaa. intii uu dhismaha hoteelku socday, Krishnan waxa uu indhaha ku dhuftay hal goob oo aad u muhiim ah. muuqaalka ugu quruxda badan ee hoteelkiisa waxaa laga arki karayay hoteelka kale ee lagu magacaabo Taj Lab Plaza, maadaama uu si toosa uga soo horjeeday. sidaasi darteed waxa uu karaystay naqshad sameeyey caanka ee lagu magacaabi jiray Bill Bensley iyo khubaro dhinaca ilayska qaabilsan. waxaanu ku amray in nalalka hoteelka u qaabeeyaan qaab soo jiidasho leh si macaamiisha degan hoteelka Taj ay u soo arkaan oo u soo dhigtaan hoteelkiisa, gaar ahaana xilliga habeenkii. keliyata kuma uusan eekaanu quriyata iftiinka iyo nalalka hoteelka ee waxa uu qurxiyey hoteelka gudihiisana sidii jawharadoo kale. taasina waxay keentay in habeen kasta uu Leela Palace u iftiimo sidii qasri boqortooyo riyo lagu arkayoo kale. martidii deganayd hoteelka Taj ayaa bilaabay inay soo dareemaan quruxdaasi. maalintii xigtana qaar badan ka mid ah ayaa u soo dalxiis tegay dhanka Leela Palace, iyagoona marmarsiyo ka dhiganaya inay bunuun ka soo cabayaan. balse safaradoodii kuwaasi ku xigay qaar badan oo martida ka mid ah ayaa waxay doorteen inay durtadiiba u soo wareegaan Leela. sidan ayuuna hoteelka Leela ugu dhex yeeshay magac iyo miisaan weyn gudaha magaalada Uduber dhexdeeda. Krishnan waxa ugu dambayntii si guul uga soo gudbay xujadii ugu weyneed ee noloshiisa, isagoona loo aqoonsaday waxqabadkiisii la yaabka lahaa. sanadkii 2009 ururka caalamiga ee hoteelada iyo makhaayadaha ayaa guddoonsiiyey magac sharafeedka hotel maamulihii qarniga. sanadkii 2010 dowladda Hindiya waxay ku sharaftay bilad weyn ee loo yaqaano Padma Bhushan. sanadihii xigayna shirkadda Leela waxay hoteelo kale ka furtay magaalooyinka Gorgon iyo Delhi. kadibna waxaa la soo gaadhay sanadkii 2014 xilligaasuna Krishnan uu gebi ahaanba uu dunida ka hoyday isagoo ku jira da'da 29, balse waxa uu dunida kaga dul tegay sumada iyo magac hotel oo ka dhigtay mid aan abid leylaabi doonin. markii uu adduunka ka tegey kadib, boqortooyadii hoteelada ay u dhisay waxay mareen marxalado kala duwan oo dhanka dhaqaale ah. hoteelada qaarkoodna gacmo kale ayay ku wareegeen. inkasta oo isbedeladaasi jireen, haddana adeegga iyo tayada hoteelada Leela waxay baaqi ku sii hayeen qaar mariyey heerkoodii ugu sarreeyey. sanadkii 2019
majalada Travel Plus Leisure waxay u aqoonsatay hoteelka Leela Plus Uduber inuu yahay hoteelka ugu fiican adduunka. sidoo kale sanadkii 2020 iyo mar kale sanadkii ku xigay isla sanadkaasi oo ahaa 2021 shirkadda Leela waxaa loo magacaabay sumada hotel ee ugu fiican adduunka. tanina waxay caddayn u tahay in wiil yaro danyar ahaa markiisii hore kuna soo barbaaray tuulo yar oo ku taalo magaalada Kaanuur ee dalka Hindiya oo ugu dambeyntii ka dhabeeyay riyadiisii dhallaannimo, isagoona dhisay silsilado hoteela oo ku guulaystay marar badan abaalmarino badan oo caalamiya. kabtan Krishnan Nair waxa uu had iyo jeer dhihi jiray guuldaradu waa keliya tahakad yar, balse marnaba ma ahan dhibicda dhammaadka sheekada. aaminsanaantaas uu aaminsanaa fikirkaasi awgeedna waxa uu kaga soo gudbay caqabado waaweyn oo ka hor yimid intii ku guda jiray rumaynta hankiisuu lahaa. tanina waxay saaxiibayaan qisada hoteelada Leela tan iyo kulankiina kan xigana isma dhaafno iyo nooli kulante. wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.